magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay afur wadareed si heer sare ah loo soo agaasimay kana mid noqday afuradii ugu waaweynaa ee noociisa ah ee dalka lagu qabto munaasabad si weyn u muujisay midnimo isxilqaan iyo wadajir bulsho afurkani oo ay soo qabanqaabisay dahabshiil group ayaa isu keenay qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo ujeedadiisu ahayd xoojinta isdhexgalka iscafinta iyo ka fogaanshaha qabyaaladda gaar ahaan bisha barakeysan ee Ramadaan oo ah bil isu soo dhawaansho iyo walaaltinimo munaasabadda waxaa ka hadlay qaar ka mid ah xubnaha xukuumadda guddoonka baarlamaanka uu ka socday gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Abshiro xildhibaano iyo maamulka gobolka Banaadir kuwaasi oo ku dheeraaday muhiimadda uu afurkani u leeyahay mideynta bulshada iyo xoojinta wada noolaanshaha waxa ay si gaar ah u bogaadiyeen doorka dahabshiil group ku leedahay isu keenidda bulshada iyo hirgelinta barnaamijyo kor u qaadaya isku duubnida shacabka maamulka sare ee dahabshiil group ayaa dhankooda ka hadlay iyaga oo muujiyay muhiimadda afur wadareedkan aniga ku hadlaya magaca dahabshiil group ee shirkadda dahabshiil group waxaan leenahay soo dhawaada afur wanaagsan waxaan leenahay shirkadda dahabshiil meel kastoo ay joogto maanta waxay afur u samaysay intii ka soo haleeshay ama soo gaadhay inta aan soo gaadhin haddii ilaahay ka dhigayo insha Allah khayr baan u rajaynaynaa waxaan waqtigu aad buu gaaban yahay waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala inaga barayaa in uu inaga aqbalo soonka iyo cibaadada inaga aqbalo maanta dib weyn baa ina haystay ilaahay subxaanahu wa ta'ala roobka inoo shubo dhibka iyo dhibaatadana inaga qaado waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo madaxda dahabshiil group oo galabtay afurkan qiimaha badan u sameeyay intaan oo bulsho Soomaaliyeed oo halkan isugu timid dabcan dahabshiil group waa ka warqabnaa macnaha ay dalka ugu fadhiso iyo qiimahooda intaba aad iyo aad maalkiina Allah idin barakeeyo waana mahadsantihiin magaalada sidaad u camiraydiin iyo magaalooyinka Soomaaliyeed intana iyo sida bulshada Soomaaliyeed aad ugu adeegteen intaba waan kaga mahad celinaynaa waxaan kaloo kaga mahad celinaynaa intaan oo Soomaaliyeed inaad isugu keentiin halkan oo degmada Hodan ah oo caasimadii Soomaaliyeed ah dabcan afurka noocaana oo jidadka lagu afuraayo dadka Soomaaliyeed waxaad moodaa waayahan dambe aad inay ugu soo badanayso meel Suudaan la yiraahdo oo aan wax ku soo bartay ayaan arki jira sidaan ayagoo maaragtay jidadka inta u soo baxa oo afurka jidadka u soo bixiya inay maaragtay galabkii markii afurka uu soo dhow yahay inay dadka jidadka maraya xataa baabuurta laga dejiyo oo la yiraahdo soo leexda marka hadda afuradan oo kalena waxa la rabaa sidaas oo kale dadka masaakiinta iyo kulli in la yiraahdo soo leexda marba haday wax afur yihiin dhamaantiin kalmad kale uma imaan meeshaan inaan idin soo dhaweyno aan u mahad celino Ilaahay subxaanahu wa ta'ala meeshaan suuqaana keenay ka bacdina aan u mahad celino shirkaddii intaan oo dad ah oo Soomaaliyeed oo macaamiisheeda iyo dad kala duwan isugu jira inay galabta halkan afur ugu samayso shirkaddu waxay u dhisan tahay inay shacabkeeda wax ku celiso runtii annaga haddaan degmada Hodan maamulkeedaba waan u mahad celinaynaa waxayna qayb ka yihiin horumarka degmadan ka socda gurigan korkiina oo ku dhawaad 30 biyaana shirkaddii dhista waaye waan shirkaddii ugu horeysay ku dhiiratay inay dhisto wax badan ka horeysa shirkadaha iyo bangiyada marka loo eego habka ay ula macaamisho dadka shacabka waana uga mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waa maasinteeda aan leenahay magaaladan iyo meesha aad hantidaada ku aaminaysana taariikhda baa xusi doonta qofku salaan ka baad waxaan rabaa markii u horeysa inaan u mahad celiyo shirkadda dahabshiil oo runtii samaysay xafladan caawa oo loogu talagalay afur wadareedkan oo message fiican diraya oo runtii ku tusay intaanoo qof guriyooda kuma afur weynin aadan u soo dhaweynaa waa ku maasantahay shirkadda dahabshiil group runtii sida la sheegay aniga macaamiisheedan kamid ah muddo dheer waana shirkad muddo dheer soo jirtay haddaan isweydiinayay 50 iyo dhowr sano inay marayso marka waa 70meeyadii macnii horaanteedii inay curatay maraaxil kala duwanna soo martay dahabshiil group waxaan baleenaynaa waxyaabo badan ay ka qabteen dalkan hadda dahab tower waa ka dhinacaas naga taagan ada investments fara badanna dalka way ka sameeyeen waana aad u bogaadinaynaa waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu maalkooda u barakeeyo ahay khayr ka bisha Ramadaan kulligeena hayna siiyo dahabshiil groupna ilaahay ha siiyo oo xafladan munaasabadan inoo samaysay afur wadareedkan waa bil Ramadaan waa bil barakaysan waa bil duco
in la duceeyo oo dadka soomaaliyeed ee dhibaataysan runtii dalka loo duceeyo, madaxda loo duceeyo, abaarta laga ducaysto ayaa waajiba caawa. munaasabadda sida loo qabtayna marka laga reebo caadadii shirkadda dahabshiil group u caadada ahayd sanad kasta inay afur wadareed qabtaan, marka taa laga reebo waa in dadka loo duceeyo, abaarahana dadka looga duceeyo. taas way munaasabaddu insha allahu tacaala. waxaan marka koowaad rabaa inaan u mahadceliyo shirkadda dahabshiil group oo runtii maantay samaysay afurtan aanan anigu ayadaan arkin inta ay la eg tahay kana qaybgelin ramadaanka 10 casho oo uu jiro, tii ugu weynayd ugu maamuus sarraysay sameeyey. haddana noo sheegay inay meelo kale oo geyiga Soomaaliyeed ka mid ah in laga sameeyey. waad ku mahadsantihiin baan leenahay gudoomiyaha Cumar Yoolac iyo tiimka oo dhan. waad mahadsantihiin Cumar iyo tiimkiisa. waxaan u rajaynaynaa shirkadda oo la sheegay 50 sano inay ka weyn tahay, horumar weyn oo hadda la tilmaamay sartan dheer oo halkan Dahab Tower loo bixiyey oo saraha ugu dhaadheer ama tan ugu dheer Muqdisho ah. runtii waxay muujinaysaa ganacsatada Soomaaliyeedna inaysan xuduud lahayn, ganacsiguna hayb gaara lahayn. marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin. waad hormariseen bilicdaad ka qayb gasheen, waxaad ka qayb gasheen horumarka, waxaad ka qayb gashaan gurmadka ummadda, waxaad ka qayb gashiin maaragtay meeshii serviceka iyo adeega ummadda loo hayo. intaba waxaan idin rajaynaynaa inaad guulaysataan oo horey u socotaan. waxaan ugu mahad celinaynaa munaasabadan quraxda badan shirkadda dahabshiil group oo soo qaban qaabisay ayaan ugu mahad celinaynaa. mahad celin iyo bogaadin kadib waxaa dalkeen u marayaa xaalad adag oo dalka oo dhan ay ka jirto abaar baahsan. aad bay muhiim u tahay ganacsiga maadaama uu meel walba joogo in magaca ganacsiga meelahaasi dadka dhibaatada ugu badan ay ka jirto in lagu gaaro ayaan ku boorinayaa ganacsatada dhammaan. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo maamulka iyo howlwadeennada shirkadda dahabshiil group oo casuumadan martiqaadka ah ee sharafta badan noo sameysay caawa oo ah afur wadareed oo aan ku qabsanayno degmada Hodan, gaar ahaan bartamaha ama jidka laamiga dhexdiisa. marka maamulka iyo howlwadeennada waa mahadsan yihiin afurkan aan noo sameyseen. waxaan leenahay shirkadda dahabshiil group waa mahadsantihiin mar kale. annaga ka mas-uuliyadda dowladda ahaan waxaa farxad noo ah inaan shacabkeenna la afurno oo aan la muujinno in isdhexgal aan la sameyno dhammaan bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa magaalada caasimadda ku nool. sida hore loo sheegay waddanka abaaraha ka jiro, abaaraha aan gurmadno, qof walba wuxuu awoodo ha bixiyo. afurkani ayaa noqday astaan muujinaysa awoodda midnimada iyo sida ay muhiim u tahay in bulshada Soomaaliyeed ay ka gudubto kala qaybsanaanta, isla markaana ay ku midowdo qiyamka wadajirka iyo istaageeridda.